السلام عليكم. أسألك تريدينيو investor محمود أكاديمي عشرة كوبنا 10 دقيقة laba far ee u dhexeeya trading iyo investing. Trading ganacsi degdeg ah oo iibsasho iyo iibinta hantida cryptocurrency ama maadaama xagga gudaheeda hadafku waa in faa'iido maalinle ah ama toddobaadle ah. Investing maalgashi waa in lacagtaada la geliyo hanti muddo dheer ah oo aan sanado. Hadafku waa inuu lagu suuqa la kala iibsado market-ka cryptocurrency sida Bitcoin iyo Ethereum, Forex isku beddelka lacagaha qalaad Euro USD, stock saamiyada shirkadaha labada hab ee la shaqeeyaan suuqa technical analysis-ka waa sida ay ugu shaqeeyaan oo fundamental analysis sida loo ogaado wararka dhaqaalaha, mashruuca cusub iyo xaaladaha ama maareynta khataraha risk management. Ganacsi kasta guuleysta wuxuu raacaa xeerarkan: 1. Stop loss-ka in aad nidaamka u sheegto inuu iibka joojiyo haddii qiimuhu hoos u dhaco oo si aadan lacagtaada oo dhan u waynin. Take profit-ka inaad ganacsato faa'iidada aad rabto ka hor inta aadan gelin trade-ka. Ha gelin wixii ka badan weligaa. Ha ku ganacsan lacag aadan gali karin khasaaraha risk capital. 5. Sida u bilaabi kartaa baro. Ha gelin lacag dhab ah adigoon aqoon u lahayn platform-ka. Furo akoon Binance ama TradingView ama Demo account ka hor ku tijaabi. Waa inaad meelaha soo raaca aad tijaabiso iska gal maaha. Aqoontu waa furaha guusha suuqyada caalamiga ah. La soco Maxamuud Academy casharro fudud oo warar degdeg ah iyo talooyin trade. Haddii aad rabto inaad sugan oo aad aragtid oo aad la socotid waa muhiim inaad wararka ku xirnaatid Telegram-yada ama X Twitter-ka ama YouTube-ka la socotid. Ma aha haddii inta badan xogta waxaa laga helaa X Twitter-ka iyo YouTube-da inta laga helaa. Ma taalo Facebook iyo TikTok warar sax ah laguma helo. Laakiin haddii aad financial market tahay waxaa muhiim ah inaad X Twitter ama u wareegto meelaha wareegto oo xogta dhammaan meesha inta badan halkaas laga helaa xogta fiican iyo wararka sugan. Waa inaad la socotaa maadaama aad coin gadatay coin-kii uu kula soo daatay oo akoonka ku haystaa ma ogid inuu war ka soo baxay. Laakiin muhiim waaye haddii X Twitter aad leedahay oo aad follow gareysid waa la soconaysaa wixii dhaqdhaqaaq isaga sameeyo waa la soconaysaa. Tan kale waxaan kugu daraynaa maanta casharkan maanta suuqa si yahay down waaye arkaysan wax war ah ma jiro iska daba wareeg waaye suuqa maanta war oo Bitcoin maanta waxaa maraysa 89 oo meeshii ku laabanaysa. Gold-na waxaa aaday irkuu aaday waa isgaraysa. Marka kusoo dhawaada Maxamuud Academy haddii aad rabtid casharro free ah oo cryptocurrency ku saabsan sida loo gato, sida loo maalgashado, sida coin loo baaro, sida oo sida loo habeeyo sida coin-ka kuwa fiican iyo kuwa aan la iska ilaaliyo iyo kuwa scammer-ka iyo website-yada dhammaan laga eego. Haddii aad rabtid Maxamuud Academy waxaa kuu diyaarisay casharro oo course oo free ah oo aad ka daawan karto meel walba YouTube-ka Maxamuud Academy aan soo dhigno maalin walba. La soco halkaas subscribe saar, like saar si aad ula socotid muuqaaladana iyo casharrada aan soo sameeyo. Midda kale Telegram-ka haddii aad rabtid waa ku jiri kartaa. Kusoo dhawaad. XRP maanta waxaa maraysaa 89 hal doolar iyo dhibic 8. Maanta suuqa down waaye. Haddii sanad badan oo aad ku heynaysa inuu suuqa hadda 25 uu joogay adiga all time high Bitcoin 125 laga soo celinayay. Maanta waa Janis haddii coin-kii aad sugaysay oo discount sameeyay gasho oo full hadhow markuu kor u kaco ka deg.
hadda tusaale 2025 2024 Bitcoin horta dadaa meesha koray waa la soo daatay marka xawalwelin soo dhamaan mataan hadda anaga khasaare dhamaan waa ku jirna all crypto qofkii ku jira hadda khasaaro ku jira dhamaan waaye waligaa gaar haddaa